السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحبك أما صاحبة شرفت له waxaa sharaf ii ah daawashadaada. Muuqaalkan yarka waxaan rabaa inaan ku tusiyo laba waxyaabood oo runtii kugu waajib ah haddii aad tahay qof YouTuber ah ama doonaya YouTube inuu lacag ka sameeyo. Dhammaanteen waxaan raadinaynaa inaan noqono YouTuber caan ah lacagna ka sameeya. Runtii waxaan ku hayaa wadooyin fudud anigu aan qaaday isla markaana YouTube-ka lacag badan aan ka sameeyay. waxaan kugu bari doonaa muuqaalkan yarka ah sida copyright-ka ama muuqaalka uga qaadi lahayd iyo sida muuqaalka lacagta ugu furi lahaydba. Ila soco ilaa dhamaadka wixii aan fahmi weydana qaybta comment igu soo qor. runtii hortaada waxaa ka muuqda 3 sawir. sawirka koowaad calaamadda lacagta waa ujeedaa oo waa guduud waxaana saaran plus. taa micnaheedu waxa weeye muuqaalkan waxaa saaran copyright lacagna kama samayn karo. sawirka labaad calaamadiisu waa casaan. micnaheedu waxa weeye muuqaalkan waxbaa ka khaldan qaybta sixitaanka sida la ajligeed wax lacag kama samayn karo. muuqaalka saddexaad waxaa saaran calaamaddu waa cagaar. micnaheedu waxa weeye muuqaalkan lacag ayaan ka sameynaya haddii dad badan ay daawadaana lacag badan ayaan ka qaadi doonaa. talada koowaad aan ku siinaya waxa weeye markaad sameysanayso YouTube-kaaga marka u horeysaba iska ilaali markaad sameynayso YouTube-kaaga. wuxuu ku siin doonaa optionada waxaa ka mid ah YouTube-kan muuqaalada aad soo gelinayso si aad ugu talagashay ma caruur baa ugu talagashay mise dad waaweyn. haddii dad waaweyn aad ugu talagashay iyo haddii caruur aad ugu talagashayba labadu waa laba qaab oo lagu shaqaysto. laakiin waxaa iska ilaalisaa muuqaalada aad soo gelinayso in aad dad waaweyn ugu talagashay isla mar ahaantaasna aad dhinaca caruurta xijisay. tusaale ahaan oo kale YouTube markaan sameysanaya waxaan ku qortay muuqaaladan soo gelin doona waxaan ugu talagalay caruurta. hadhow markaan soo geliyeyna waxaan ku qoray dad waaweyn ayaa ugu talagalay. way isdiidan yihiin YouTube-kan wuu kaa diidayaa oo wuxuu leeyahay wax lacag ka samayn maysa waayo qaanuunkii baa khilaaftay. marka bal aanu gadagalno muuqaalkeena maanta. qof kastoo YouTuber wuxuu u baahan yahay talooyin iyo nasteexooyin inuu marka hore soo helo si uu u helo wadada guusha cagtan u saaro isu ku rafaadin. aniga kula hadlay 2020 ayaa bilaabay runtii lacagta waa la ii furay sida ajligeed waxaan ku soo doonaa talooyin qiimo badan aad u fudud. dib ayaan ugu tagi doonaa talooyinkaaga wixii su'aalana comment-ga ayaa furan saaxiibka qiimaha badan. qof kastoo naga mid ah wuxuu doonaya inuu YouTube lacag ka sameeyo adiga ay daawanaya iyo aniga iyo qofka kaleba. laakiin wadooyinka la maray ayaa kala duwan. runtii waxaan soo furan doonaa YouTube Studio qof kastoo YouTuber ah uu u baahan yahay. haddii halkan aad fiiriso muuqaalada ugu dambeeyay aan soo geliyay oo aan kaga hadlaynay barashada luqadda Carabiga ah calaamadda saaran waa casaan sidii markii hore uu sheegayba. taa micnaheedu waxa weeye muuqaalka calaamadda casaanka saaran tahay copyright ma laha laakiin waxaa ku jira wuxuuna khalad ah. haddii aan asaga doorto saa u soo saxo oo aan ka xusho ilga yarka ka xusho oo aan meeshaan ku qoranta it's not modify halkan ka timaado waa qaybta lagu leeyahay. qaybta waxaa ka dooranaysaa ma caruur baa u samaysan muuqaalka mise uma samayn. runtii gaaladan waxay isticmaalaan qofku wuxuu ku qaangaaray state wax ka sarreeya marka wuxuu ku siinaya option halkan kore yes it is mode for kids waxaan u sameeyay caruurta. haddii taa ku dhufato halkan hoose wuxuu leeyahay muuqaalka waxaa lagu talagalay inay daawadaan dadka ka hooseeya 18 laakiin waxaan leeyahay no ma doonayo. halkan hoose waxaan ka dooranayaa no don't ma doonayo inay muuqaalka daawadaan dadka hoose 18. waxaan doonayaa dad inay muuqaalka daawadaan dad ka sarreeya 18 waayo gaaladu waxay ku qaangaaraan 18 maxaa Allah ku leeyahay. marka hadda inta aan doorto halkan no ayaa ka dhigaysaa waa haddii muuqaalka u talagashay inay daawadaan dadka ka waaweyn 18 midna iska ilaali kombiyuutarka iraada YouTube-kaaga hadduu ku saxan yahay ama aad doorto option-ka ahaa inaad muuqaalada ugu talagashay dad ka waaweyn 18 halkan waa inaad iska ilaalisaa. marka halkan aan doorto hadda calaamadda soo ujeedada waa blue waa casaan waxaan leeyahay safe. calaamadda way isbedelaysaa sababtoo waan saxay oo waxaan ka dhigay hadda fiir calaamadda shay noqotay. hadda waa ujeedaa halkan marka aad soo gasho monetization-kan okay waan leeyahay. marka yes xusho waa soo baxaya. hadda waxaan filayaa weli waa casaan sumaan haddana dib aan ugu laabanay fiir markaan calaamadda wax isu bedeshay cagaar isu bedeshay waayo waan soo saxay. marka hadda waan soo saxay marka aan calaamadda blue ka dhigto ayaa waxaa dooranaysaa halka qoran tahay monetization oo lacagta ayaa furaysaa. haddaba halkan ayaa dooranaysaa saddexdan u koreeya waa xaysiintii ama adiskii si aad lacag uga samayso. saddexdan ayaa calaamad saxda saaraysaa dhag kan u horeysana
u hooseysa ay ku qoran tahay nan explay video ads ma dooranaysid oo hadduu saxda ku saaran yahay muuqaalkan wax lacag ka samayn maysid saxda ka qaadaysaa marka saxda ka qaado oo ka soo baxaysa waxa leedahay okay marka okay tiraahdo hadda muuqaalkii waa u jeedaa calaamadiis cagaarka ahayd ayaa saarantay ka waa fahantay oo qaabka loo socdo haddii marka aan kugu celiyo hadda ahaan oo kale kan kale ayaan imaanayaa hadda kan calaamadiisu waa mataqaanaa waa blue halkaas ayaa dooranaysaa waxaan fiirinayaa lacagta inay u saxan tahay halka ayaa dooranaya saddexdan haddii aan ka qaado wax lacag ah ka samayn maayo laakiin haddii saddexdan aan doorto lacagta waan ka samaynayaa halkan iska ilaali haddii sax ku saaran tahay muuqaalkaagaas wax lacag ah ma ka samayn doontid ka qaad saxda okay ayaad oranaysaa marka qaabka waa qaabka lacagta loogu furto muuqaalka marka aad soo geliso oo aad meesha mataqaanaa monetizationka waxa ka horeysa marka u horeysaba monetization ku soo saari maayo marka u horeysa waa inaad meeshan ka hooseysa aad iska saxda haddii youtube-kaaga caruur loogu talagalayna oo marka caruur aad ku saxdayna yes baa leedahay haddii aan ugu talagalayna no baa leedahay inta marka okay tiraahdo qaybta labaad waxay u gudbaysaa monetization ayaa ku dhufanaysaa saddexdan u koreeya ayaa saxa saaraysaa ka war muuqaalkaagu hadduu ka badan yahay 8 daqiiqo oo kale hadda muuqaaladan aad daawatay oo kale wuu ka yaryahay 8 daqiiqo oo kale fiir waa 6 daqiiqo muuqaalka hadduu 8 daqiiqo ka badan yahay asna qorshihiisu waa ka duwan yahay muuqaalkan tusaale ahaan oo kale hadda waxaan u imaanayaa muuqaalkan oo kale ha ka baqin dadka hadalladooda oo kale marka ku dhufto wuxuu iskii hore muxuu siinayay dhowr option ayuu siinayay kana wuxuu siinayay optionka ka fara badan tusaale ahaan oo kale monetization ayaa imaanaya fiir halkan wuu ka badan yahay saddexdan hore wuxuu ugu daray kuwan hoose waayo location of video ads haddii muuqaalka uu ka badan yahay 3 daqiiqo ama 4 daqiiqo ama 5 daqiiqo ay raadeen haddii muuqaalka uu ka badan yahay 8 daqiiqo ka u hooseeya ayaa mid roolka ayaa doonaysaa xaysiinta dhexda ayaa la gelinayaa waa midaas mid aan kuu sheegayo kaas ayaa saxa saaraysa markasta haddii muuqaalka 3 daqiiqo uu ka badan yahay saaxiibka qiimaha badan waxaa filayaa qaybtaas waa fahantay